Bismillah, waxaan rabaa halkan inaan idinka soo gudbiyo walaalayaal saliidda la yidhaahdo qoronfalka ama loo yaqaana dhagayaaraha. Faa'iidooyinka ay leedahay inaan wax idinka sheego oon idinka taabto. Faa'iidooyinkeeda lama soo koobi karo. Ay leedahay ay u sheegaan dadka dhakhaatiirtu ay u sheegaan, laakiin waxaan rabaa inaan idinku soo koobo faa'iidooyinka ugu muhiimsan. Faa'iidooyinka waxaa ka mid ah inay ilkaha dadka ay xanuunaan oo kale saliidda ama dhagayaraha laftiisa ama saliiddiisa ay ilkaha ku luqluqdaan markaaba wuu kaa zuulayaa. Waana mujarab, arrinka waa la tijaabiyey. Waxyaabaha fawaa'ideeda ka midka waxaa ka mid ah hargab markuu ku hayo oy neeftu ku qabanayso ama aad dareemayso waxyaaba noocaas oo kale ah, inaad ismariso isla markaaba wuu kaa tegi. Khaasatan caruurta oo kale, ilmaha yaryarka ah in la mariyo oo cagaha, cirbaha, calaacasha, gacmaha iyo lugaha, madaxa oo kale, laabta oo kale loo mariyo isla markaaba qabowgii iyo xanuunkii iyo neeftii ku dhegeyso oo dhan buu ka tegayaa. Fawaa'ideeda waxaa ka mid ah in loo isticmaalo isqurxinta oo kale. Dadka waxaa jira dad jidhkooda uu qallafsan yahay una lahayn saliid iyo waxba una lahayn, jidhka qoyaan buu ka dhigayaa markii uu qofku marsado, oo wejiga oo kaliya loo isticmaala oo gabdhaha isku qurxiya. Waxaa kaloo ay faa'iideysaa markuu qofku ismarmariyo ama uu cuno midhaheeda ama haylka dhagayaraha uu cuno. Waxay leeyihiin adibadu iyo dadka culummada dibiga ama caafimaadku waxay leeyihiin kansarkii jidhka ku gudbi lahaa ee jidhka u kala gudbo oo dhan buu ka hor tegayaa, uu baabi'inayaa, uu tirtirayaa. Faa'iidooyinkiisa lama soo koobi karo. Caawo dhan haddaad tiriso waxaad arkaysaa wax aad u fara badan oo laga sheegayo. Marka waxaan rabaa inaan idinku baraarujiyo in saliidda dhagayaraha aad loo isticmaalo xiliyadan welibana ay xanuunadu jiraan sida hargabka faraha badan ee dadka qaarkood ay leeyihiin waa covidkii. Haddii aad dareento waxyaabaha saas oo kale oo dhan dhammaan inaad u isticmaasho. Marka walaalayaal waxaan jeclaystay habeen walba inaan soo gudbiyo waxyaaba muhiim dadka u ah. Inta aan ka sheega waa inaha ugu yaryar ee laga sheegi kara, laakiin waxaa ka badan faa'iidooyinka uu leeyahay dhagayaraha saliiddiisu ay leedahay. Qaabka aan ku ogaan karno siday u kala faa'iidooyinka badan yihiin, meelo badan bay ka soo baxaan. Sacuudigu qaar buu soo saaraa, waxaa kaloo soo saara Afrika, qaar bay soo saaraan. Waxaa kaloo lagu soo saaraa Bakistan oo kale. Bakistan aad baa loo ammaanaa. Sacuudiga saynu ognahay waxyaabaha uu soo saara aad bay u qiimo badan yihiin, laakiin xagga kulaylka oo kale waxaa aad u kulul oo isla markaaba aad isbeddelka dareemaysaa midda Bakistan laga soo saaro. Ta Sacuudiga haddaad isticmaasho iyo ta Afrika haddaad isticmaasho iyo meel kale laga soo saaray haddaad isticmaashana kulli waa isku wada mid faa'iide ahaan, laakiin way sii kala faa'iide badan yihiin. Marka yaan la moogaanin arrinka isaga ah.